taliyo ku-xigeenka hay-adda dambi baarista CID-da Bishaar Abshir Geedi ayaa warbaahinta u soo bandhigay shakhsiyaad lagu eedeeyay inay ku howlanayeen sameynta baasabooro, shahaadooyin, warqado been abuura kadib howlgalla ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya ay ka sameeyeen suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho gaar ahaan Cabdilishideeye. waxa uu sheegay shakhsiyaadkani sidoo kale inay sameyn jireen dukumiintiyada ka soo baxa xafiisyada dowladda Soomaaliya. wuxuuna mahad ballaaran u jeediyey hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda Soomaaliya oo qayb weyn ka qaadatay arrintani. alaab looga soo horjeedo qarannimada iyo dowladnimada Soomaaliya oo falsification oo lagu soo qabtay magaalada Muqdisho gaar ahaan Bakaaraha goobta loo yaqaan magaceeda Cabdilishideeyaha. waxaa iska kaashaday arrintan hoggaanka waxaa iska kaashaday hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha oo runtii yacni ruux warqado been abuura inuu ku dhoofo rabay ka soo qabtay aeroboortka Aadan Cadde International. ruuxaas baaristii aan ku samaynay kadib waxaa noo furmay kiiskan meeshii uu ka yimid ood arki doontaan qalabka ee lagu soo qabtay iyo dadkii waxaas ku shaqaynayay oo alaabtaas falsificationka samaynayay iyo qalabkoodii. sidaas oo kaleeto waxyaalaha been abuurka oo la sameeyey waxay isugu jiraan dukumiintiyada xafiisyada dawladda ka soo baxa intooda badan jaamacadaha Soomaaliya shahaadooyinkooda maamulka gobolka Banaadir warqadaha dawladda hoose sugnaanta iyo dhalashada caafimaadka. sidoo kale taliyo ku-xigeenka hay-adda dambi baarista CID-da Bishaar Abshir Geedi oo hadalkiisa sii wataa ayaa waxa uu digniin u diray shakhsiyaadka ku howlan arrintani inay ka waantoobaan. wiilasha waxaan ka shaqaynaya shirkadaha ka shaqaynaya odayada kabaniyada u samaystay adeerayaalow meeshaan ha ku kadsoominina iska burburiya makiinadihiinna iyo qalabkiinna kuwa meelaha kale ku haystow si kale oo xaq ah oo xalaal u adeegsada ummadda wax ku bara ummadda ku wacyigeliya ummadda xaqa ugu sheega baadilka iyo dulmiga aad ku samaynaysaanna ka dhex baxa haddaa ka dhex bixi weysaan dowladda Soomaaliya dowladnimada aad maqlaysaan waa xoog la sharciyeeyey xoogga la sharciyeeyey dadka inay fuliyaan laga rabana hoggaanka baarista dambiyada CID u horeeya waa soo qabanaynaa waa la xisaabtamaynaa waa baaraynaa hay-adaha ku shaqada leh ee garsoorkaana u gudbinaynaa. ugu dambaystii waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha agaasimaheeda iyo shaqaalaheeda isku duuban iyo qaybta guud taliyaheeda iyo ku-xigeenadeeda guud ahaan oo isku duuban iyo hoggaanka baarista dambiyada CID guud ahaan taliyahooda iyo ku-xigeenadooda saraakiishooda ciidankooda isku duuban oo runtii aan dhihi karo shaqadan si saddex geesood ay isaga kaashadeen. taas waxay ku tusaysaa wada shaqaynta buuxda. taliska hay-adda dambi baarista CID-da ayaa sheegay inay sii wadi doonaan qorshahani isla markaana ay kula dagaalami doonaan shakhsiyaadka sameynaya waxyaabaha been abuurka. dowladdana uu sheegay in gacan bira ay ku qaban doonto. Cabdiraxmaan Waabiri, Som News, Muqdisho.